السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله الصومالية ميلاد شوفتان بويد السلام يا الله السلام يا دمانتي ولا الله الصومالية ويد السلام يا الله السلام يا كل جي ميلاد شوفتان بويد السلام هيا إلهي هيدك السلام يا مي مقالة ولا الله أنت يمين التاي أنت مالن التايبة إلهي إذن كسلام يلا ولا ليال دمانتين إلهي إذن كيسة الله إذن كحفظ ميلة شوكتان بق إلهينا أنت دمتها ونحرستو أنت نولنا إلهي سبحانه وتعالى عافي ماذي عمر الداري عبارة هالسيو دمانتين ولا ليال إلهي نودن بدافو دنبقنا دنبوارتكينا الله دافو إلهي إذن كيسة بإذن الله دنبقينا يدنب واردكين با الله داف إلهي نون نحريستا walaalyaal meelan joogna insha Allah باذن الله waxaan u maleynayaa adduunkan maalin walba heer buu taagan yahay maalin walba meel buu joogaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin wanaagsan haylo kaga dhigo hameen inta u tahay hameen wanaagsan Allah uga dhigo Allahna ina cafiyo hayna xafido walaalyaal dhamaanteenba inoo dambi dhaaf Ilaahay idankiisa adduunka waxa weeye wax walba aad aragtid baan ku ir waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo la yaabtid oo aad isleedahay adduunka miyaan dadkan maskaxdoodu ma qaybsanta miyaa adduunkan marka walaalayaal qof walba waxa roon intuu waxa la intaada falin ka fiirsaaliyo waxa la yiri intaada falin ka fiirsaaliyo قبل أنت هذا فلين هذا دان هذا أحول بوا إسكفل هيا أنا ولي أنا ماركته أنا تحدر سمين هذا هذا أحول بوا سمين يا خير يا شربة وحلقة يا با إنا يسن قوة ناكسنين وكهدو تكون في عدوني وهذا أنت تكش الله إلى يديه لي الله محان وحاسو سمي الله محانو سمي وحاس وحلي هذا الكنتو أفكا كتشرو أمانة يهيبالي hadalku waxa la yiri intuu afkaaga ku jiro ayuu amaanaya haduu waxa la yiri afkaaga ka soo baxo oo banaanka yimaado waxba kama qaban kartid inta ad warkaaga xukumi kartid waa inta uurkaaga kuugu jiro marka walaalayaal waxa walba oo aad rabtay inaad dhahdid marka hore waa inaad ka fiirsataa marka hore waa inaad ka fiirsato tiraada war waxaas ama ay hadhow dhibaato ku keentaa ama ay ceeb ku keentaa ama hadhow shalayda adiga naftaadu aad shalayda marka aadana hore waxa uu yiraahdeen intaadan falin ka fiirso intaada falin ka fiirsaa la yiri haddaynu intaynu qaadano aynu iska dhahno wax walba isaga hadalno afka qoyan aynu ku hadalno iska hadalno ama aan fayuus ku raadino ma fayuus baa wixii la dhigi jiray aan ku raadino ama iska hadalno hadal iska maaragtaan iska marka anagu iska dhahayno waxa laga yaabaa bari ina ka nadamtido tiraad ilaahu maxaan sidaa u ir maxaa igu watay inaan waxa siraado maxaa igu watay inaan sidaa iraado dadkeenu ma hadiisu waa wax jiro runa weey say waxay yiraahdeen intaada falin ka fiirsay intaada falin ka fiirsaa la yiri mar walba waa idin sheegaayo kalibada aan duubo walaalayaal waxaan jeclahay inaad ilaa aakhirkooda dhageysataan sidaad warka naxwihiisa u heshaan sidaa warka naxwihiisa u heshaan aakhirkiisa dhageysta insha Allah biidmillah marka walaalayaal waxa weeye adduunkan waxa weeye afka qoyan hadaad u hadashid biri waxa laga yaabaa hadalkaas leedahay qof walaalkaayo inuu durrinayo hadhowta adigu aad dhihi doonto hadaadan markii aadan sidaa dhihin oo iscelin lahayd aad isdhihi lahayd marka waxa la qaataa marka horeba inaad ka hadashid marka horeba inaad ka fiirsatid warkaan aad iska dhahaysid marka horeba walaalayaal inaad ka fiirsatid sababta waxa la hadal aan fiiro loo oran iyo caana aan fiiqsi loo dhamin waxa la yiri feerahaaga ay wax yeelaan oo waa kugu fogaadaan baa la yiri
sababtay taa waxa weeye qofka aadamiga markuu rabo inuu wax duubo ama hadlo waa inuu ka fiirsadaa wuxuu leeyahay yay wax yeeli doontaa yaa dambi kaaga imaanaya maahan kaliya in wax lagu yeelayo maahna dambi baa xataa kaaga imaan kara sababtay ta qof baa magac day qofka waa dheer yahay ama waa gaaban yahay uu saraali kan waa kugu dambi baa liir qofka waa dheer yahay iyo waa gaaban yahay labadaasba waa kugu dambi baa liir waxa laga yaabaa hadal aad iska tiri in qof colaad u qaato waa adiga laftigaaga dambi bay kugu noqonaysaa sababtay ta hadal laaxid loo dhan lama yiraahdo hadalka laaxidka oo qof aad iska tiraahdid oo adigu aad iska tiraahdid oo qof xumaan u qaato oo colaad u qaato waxa way dambigaas waxbaad ku yeelanaysaa sababtay tahay hadalka laaxid kale oo laaxidka ma wanaagsan sembri dadku waxa weeye waa ay karahdaan oo waxay yiraahdaan qofkeebuu wadaa qofkeebuu ka wadaa maanu iga wadaa mayadu ka wadaa ma waa dhib badan yahay marka waxa weeye qofku hadalku leeyahay inuu ka fiirsado oo mar walba ka fiirsado waa fiican yahay hadalka laaxidka mar walba ma fiicna ma wanaagsana mana qurux badna ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal ha inoo dambi dhaaf anigu hadda cidna ugama jeedo laakiin macnaha oraahdan soo wado ayaan rabaa inaan ugaga hadlo ma ahana waxaan hadda anigu ama aan soo wado ama aan qof ka arkay maahan walaalayaal waad aragteen dadkeeni saqiiri kabiir youtube-kii baa lasoo dhex fadhiista ama xoolaha laga raadsho ama sideeda muxuu hayto maxaadiraha lagu jeedinayo ama muxuu hayto wuxuun lagu soo gudbiyo waad aragteen dadkeeni dhammaanteen haddaynu ahayn dadkii hore dadkii ka dambeeyey iyo dadkii yaryaraaba intuba youtube-kay ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal horta youtube-kan khayrkiisa hayna soo aadiyo sharkiisana hayna ka duwo anigu mar walba waxaan dhageystaa muxuu hayto dadka aniga ila da'da ahaa baan dhageystaa waxaan ka dhageystaa mahmahyaday soo duubaan waxaan ka dhageystaa maxaadiraday soo jeediyaan waxaan ka dhageystaa wixii maaragta waddankayga ku saabsan oo wanaaga oo aan u bogo intaba waa dhageystaa waxaa intaa walaalayaal dheer oo intaa soo dheer markaan intaa dhageysano waxaa soo dheer dhalinyaro maanta markay ay isla hadlaanba youtube-ka isa soo dhigaya oo waa saaxiibana waa saaxiibtiis hebelba iyo saaxiibtiis bil intaysa soconna waa isdagaaleen iyo waa isdileen iyo waa isqabsadeenba haddana lasoo dhigaa qaar baa falow ku kala raadinaya ninkii waa isfurnay laysmana furna waa la isqabaa gurigaa la wada jooga ninkii saanaanu yeelnay gabadhii saanaanu yeelnay waxaasoo dhan waxaan u malaynayaa walaalayaal ujeeddada aan ka hadlayana inay tahay baa laga yaabaa walaalayaal wax shaydaan baa ku jira dadka il baa jirta carab baa jira wax walba waa jiraan qofka iisaanka marka waxa weeye reerkiisa iyo waxa weeye inuu ka gaabsado waa fiicanta waa isfurnay waa beentay cayaar bay iga ahayd kanaan yeelnay maya waa beentay cayaar bay waxa iga ahayd vlog baan ku raadinay galabta waxaan fiirsaday gabar ninkeedii tiri soo fur ilaa haddaad magaaladaas aaday isoo fur haye hadduu bal ninkaasu gabadhaasu ninkeeda waa jeclayd waa rabtay hadduu yiraahdo waa ku furay walaalay macaane maxaabad iigu qaylin faloog dambe looma noqdeen bay ila tahay mar dambe gabadhaa faloog ma duubteen oo kuma raadiseen waxaa faloogal aad sheegtaan marka waxa weeye waa dhibaato malaa'igta aamiin dhihi kartaa aamiin baa malaa'igtu dhihi kartaa adigu faloog baad ku raadinaysa iyo wax masqaala daratina laakiin reerkaagii baad ku burburisay waa wax qalad ah weeye waa wax qalad ah gabadha in reerkeeda ay cayaar ninkii ugaga dhigto wariyaa ay soo fur wariyaa ay yeel wariyaa kee bilowba asagba xanaaqayo shaydaan meeshii ka dhex shaqeeyay oo gabadhii furiyo iyadoo aan raalli ka ahayn oo faloog ku raadinaysay marka walaalayaal mid waxaad arkaysaa lacabada kartoon intuu soo duuduubo maro oo naag ka soo dhigo kiyo naagtii la hurda ama la fadhiya ama si un iska dhiga naagtii ugu soo gasho hadday bir qaadato madaxa jabiso dhiiggiisu daato xidid istaagi waayo soo inkaar maahan waa dhibaato weeye waa wax xun weeye waa wax khatara weeye gabadhii waxay leedahay ninkaygii baan waxaan ku samaynayaa baraangi ku samaynaya baraangi baa ninkaygii ku samaynaya
وخلد وي nimanka iyo naaga markay masayrka noqoto nimanka masayr xun wadagtii marka waxa weey waa wax qalada weey reer dhisan oo nabad u barawaara balaayo kaale lama yiraahdaan dadkan reer bariga adoo nabad u barawaara balaayo kaale lama yiraahdaa la yiri marka walaalayaal waxyaalaha badan oo qaladka oo hadda ku soo biiray reerku wax lagu ciyaar maahan malaa'igta aamiin ku dhigi karta shaydaanka ka faa'iideysan karo aamiin ku dhigi karo waa isfurnay aamiin bay ku tiri shaydaankii baa ku yiri allahumma najayna aamiin buu ku yiri waa dhib weey marka mar walba ilmihiina iyo reerkiina waxaan jeclahay inaa ka saartaan baraangiga ka saartaan socialka meeliyaha la dhex fadhidaan haddaad adiga iyo xaajigaagu aad wax soo gudbinaysaan waa nicmo min Allah dadka kugu dayanaya dadka idinku dayanaya wanaag bay keenayaan laakiin waa isfurnay iyo waa isyeelnay iyo waa isyeer waxaas waa khalad baan xisayaa waana wax dambi kaga imaanay waana wax reerkii malaa'igtii shaydaankii aamiin idinku dhigi kara oo reerkaas oo nabad oo khayr qaba imisaan arkay dad saas intay sameeyeen isla ayadoon laba bar ka soo wareegin la isfuray reerkii waa dhibaato adduun walaalayaal YouTube-ka idin kala hadlayo waa YouTube oo maqaalid ma aanan idin sheegin markii ugu horeysay marka walaalayaal ka fiirsada waxyaalahan aad sameeynaysan ama aad ku kacaysaan ama aad ku hadlaysaan ka fiirsada hadalka qalqawga iyo xun ilaahay kaagama tago laqwigu waa wax xun weeye ana saasa igu dhacday kanaanahay keeraanahay haye waxa lagu leeyahay adoo xoolo haysta oo ladan oo laba kululanaya waxa weeye muxuu hayto lama yiraahdo waxba ma haysto waxba ma heli karo ayada lafteedu waa laqwi ilaahay naga xijaabe ayada lafteedu waa dambi ilaahay naga xijaabe walaalayaal marka iska ilaaliya walaalayaal hadallada badan oo laqwiga waxa weeye ilaahay baan ka magan galaynaa waa buuxnaa waana baraarsanaa alxamdulillah ilaah baa naga wanaagsan alxamdulillah wa shukru lillah ilaahay baa mahad iska leh asagaan ku shukriyeynaa ku mahadinaynaa mar walba walaalayaal waxa weeye ilaahay mahadkiisa inaad badisaan waa fiicanta ilaahayga ku caafiyey ilmaha ku siiyey reerka ku siiyey ku dajiyey haddaad gabartahay gabadha kaa dhigay ilaahay risqiisa uu aad mawjuud u tahay wiil haddaad tahay sidoo kale ilaahay risqiisa caafimaadka ku siiyo nabadgelyada ku siiyo mar walba inaad alxamdulillah tiraadid weeye alxamdulillah hooyo haddaad tahay ilaahay caafimaad ku siiyey oo nabadgelyo ku siiyey alxamdulillah inaad tiraadid wixii naga dhimana ilaahay baan u qabnaa inaad tirahdaan alxamdulillah wa shukru lillah marka mar walba walaalayaal waxaan idin leeyahay waxyaalaha laqwiga oo hadalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna ka xijaabo ilaahay kala hadalka iyaga xun iyo muxuu hayto iyo geeridayada ma kulmiyo ilaahay markaa ayna ka xijaabo walaalayaal qof walba oo muslina oo ummadii nabi maxamed walaalayaal waxa la rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u ballan qaaday ama uu muxuu hayto ilaahay ugu talagalay wuu marahayaa waqti walba laakiin mar walba inaynu waxyaalaha laqwiga ka cararno inaynu maaragta hadal laqwi keenayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu saraali ka inaan ka carar ka fogaano sababtay tahay guryaha iyo wax lagu ciyaaro maahan iyo caruurta iyo reerka wax lagu ciyaaro maahan wixii falow lagu sameeyay waxyaalaha kale wax ka qari wax ku samee kale meel intaad muxuu hayto kaamirada aad sidaa u dhigataan oo kale u dhigataan ka baji wax laga baqa u keen been sheego saasa dhacday haddaad rabtid ilaahay ha naga najeeyo beenta laftigeeda waa wax xun macnaha been waxa kamid ah hadii qofkii la bajinayo waa la bajiyay waa been weey macnaha been kala keen kuma lihi laakiin hadda waxbaan ku bajiyay halka waxa la sameeyaa wiilasha yararka ay guriga waxay ugu yiraahdeen hadda ka hor mid aan dhalay baa wuxuu yiri guri iska bulo wuxuu yiri waxaan soo qaadanaa dun khafiif aan loo jeedin duntii baan meel ku xirxirnay mid baa intuu qaatay baan wax meel saaran baa saa uga xarakaysinaa markaas yiraahdo war waxaas waa xarakoonaya markaasaan waa waray gurigana walba la yiri waa la degan waa laga kala cararay wiilkii waa sasay kale marka waxyaalo midda saas hadii ciyaar laga dhiganayo ama farood aad ka raadinaysan ka raadiye laakiin waa qalad wixii maaragta reerkii iyo waxa weeye shaytaanku waa ilaahay naga xijaabe been iyo balaayo ba asaga loogu yimaado allah naga xijaabe xasbiyallahu ni'mal wakiil walaalayaal iska ilaaliya waxyaalo maaragtaan ilaahay raali ka ahayn inaynu ku kacno waa wax qalad weeye iska ilaaliya ilaahay ha idinka xijaabe annagana allah naga xijaabe
reer ladan oo laba ku lulanayo reer caruurtoodii reerkii isdhex fadhiyaan haddaad tiraadaan been baan sheegaya balaayaan samaynaya waa dhibteeday leedahay ninkii baan falow ku samaynaya waa la xanaaqi karaa ninkan waa bilow aadan ama gabadhan waa bilow aadan haddaad falow ku samayso ay xanaaqdo oo ay bir qaadato madaxa ku jabiso intaad naag beena isla soo fariiso kartoona waa dhibteeday leedahay marka ilaahay naga xijaab qaar waxaad arkaysaa saliid dhulka ku daadinayo oo ninkii ku kufayo madaxa qarxi kala naagta madaxu qarxi kala saliid baa dhulkii lagu shubaya wax badan baad arkaysaa ka yaabiyo marka ilaahay naga xijaab walaalayaal ilaahay toobadana han nagu sugo ilaahay idankiisa biidmillah wixii dhibana allah ina ka xijaabo intaas aan rabay maanta inaan idin la qaybsado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh